lagu sameeyo sidoo taliyo halkan ka qiray degmooyinka kale kuwa loo samaynayo halkan tababarkooga iyo dhaqaalahooga iyo waxa ku baxaba si uu dabdamiskaas u midho dhalo ay golaha deegaanka Hargeysa gaareen ayaanu anagu kharashkooga dusha ugu qaadan jirnay gaadiidka dabdamiska ee caasimadda ka hawlgala hadday gaadiidkooga xafiiska iyo ka noqoto waa 19 gaari maanta caasimadda Hargeysa waxay leeyihiin xaruntii oo ah tii qaranka iyo 3 xarumood oo dhisan 2 xarumood oo harsanna waa u bannaan yahay dhulkoodii halkoodii laga dhisayay oo waa degmada Axmed Dhagax iyo degmada 16 Juun oo suuqa gobolnimo waana adnaagteeda halka kalena dabdamiska waxaan uga faa'iideysanay inay noqdaan national emergency hawl kasta oo dhacdo oo emergency hadday daadad ku dhacaan haddii ay xoolo wax noqdaan hadday cid walba noqoto haddii ay bagaa ku dhacaan ubadkeenu cidda ka shaqaysa hawsha ka qabata waxa weeye waa ciidankeena dabdamiska waa dhalinyar aanu si fiican u carbinay aabbo wanaagsanna uu helay oon u mahadnaqayo Axmed Sawaaxili isagoo lacag badan qaata ayaa wuxuu uga soo noqday inuu noqdo inuu dabdamiska madax ka noqdo uu waddankiisa tababar ugu shaqeeyo waxaynu halkan maanta joognaa warshadii dawladda hoose waxaanu la wareegnay gaadiidkaanu dawladda hoose kula wareegnay ee xagga dhismaha hawlaha guud waxay ahaayeen 2 cagaf oo shay wala oo arrimaha bulshada ka shaqeeya gaari siisow oo iska hoga ah booyada daamurka oo ah booyadii daamurka shubaysay hal hugley iyo 2 iska hogo oo kira ah oo midna Allah u naxariistay uu lahaa injineerkii city injineer Ibrahim midna uu lahaa maayo ku-xigeenkii hore inuu cadde qalabka aanu la wareegnay waa intaa kirada ayay intaas ahayd maanta halkan waxaanu ku wareejinaynaa qalab iyo warshado gaadiidka aan halkan ku wareejinaynaa waxa weeye waa iska hogooyinku waa 8 weeyi booyad intaasoo hugley bayfartii karashaki Allahumma salli ala Muhammad aswal balanki halkan waxaan aad ugu amaanayaa oo jooga injineer Gaashe oo ah ninka ka madaxda ah ee noo maamula halkan Gaasho halkan istaag aad baan ugu amaanayaa dad badani waa dhaliilaha naloo sheego laakiinse wadadu maalina waa la hubeerkirayaa maalina way jabtaa shaqaalahaas waa shaqaalaha badan ee halkaa taagan iyo qalabka intaa leega badan maalintii aanu xilka la wareegnay iska hoglaanta quri dhibaatada kugu tahay shirkadaha qashinku barkood waxay nagu sameeyeen inay markaan dhaahno kordhiya gawaalidii qashinka inay shaqo joojin nagu sameeyaan magaalada Hargeysana aan qashin aan ka qaadi ka weyno ay noqoto inaanu iska hogooyin u soo kireysano maalintii ugu horeysay 2 gaari iska hogooda 2 cascasa ee sinatoranka ay noo yimaadeen iyo shirkadii hoostayada soo fariisteen taasina waxay keentay inaanu go'aan ka gaari karno inaanu wadana samayn karno qashidaan oo nagu awood u leenahay inaanu ku karno qaybtii labaad waxaanu soo iibsanay oo dalka Imaaraadka kala nimid 2 sheewal grader iyo hugley oo noqonaysa qaybtii labaad qaybtii saddexaad waxaan la nimid bulldozer baan la nimid E5 qaybtii shanaad waxay qaybtii aan Itoobiya ka soo iibsanay dadka qaar waxa ay yaqaanaan qaybta aan Itoobiya ka soo iibsanay aan soo iibsanay intaasiba qalab kala duwan bay ahayd 2 gaari oo magaalada gudaheeda iyagana aanu ka iibsanay intaasoo gaadiida iyo gaadiidkii raaya xafiisyada oo aan maanta gumaanaan tala gelinay halkan isugu wada yimaadaan waxaan nidhi intii aan shaqada qabanaynin halkan aad timaado waayo bayfartii iyo qaybtii shaqada ku jirtay ee ka shaqaynaysay waxay taallaa cusbitaalka agtiisii oo shaqadii bay wadaan gaadiidkii iyo degmooyinkiisoodii bay u shaqaynayaan intan qalabki waa intii aan maanta shaqaynayn halkan hortiina taagan markaan u galo sectionka nadaafadda waxaanu la wareegnay iyada oo mashruuca BB-ga la hirgeliyey shirkado barayfada loo dhiibay
dadka qaar waxay yidhahdaan gacanta dawladda inay ku soo noqoto ayaa wanaagsan anu waan ammaanayaa maayir cabdikariinna kulama talinayo inuu gacanta ku soo celiyo waayo shirkadaha brifate-ka ee maayir jicilii sameeyeen waxay kor u qaaday fayodhowrkii iyo nadaafadii bay kor u qaaday marbay stage ay gaadho maynaan gaadhin halkaynu u soconnay laakiinse kolba qayb halkay gaadho waxa aanu ugu nimid iyadoo ay 4 shirkadood shaqaynayaan ay 16 gaari ay haystaan 24 saacadoodna ay magaalada ka baxaan 12 lowd oo qashina waxa ay maanta gaadiidka ay haystaan shirkaduhu oo ku khasabnay inay soo iibsadaan bar World Bank aanu kala hadalay oo shirkadda Kiwis iyo Tabsan ka faa'iideysteen mid laba gaari mashruuci businesska ay World Bank bixinayeen maanta waxay marayaan 70 gaari oo qashinka ka qaada magaalada Hargeysa maalintiina waxa ka baxa 140 load baa ka baxa systemka waxaanu sii develop gareynay ka bedelay in awal waxa la sameeyay jiray in gooba qashinka la isugu keeno dadkeenu waa taqaanaa waxay yiraahdaan jibay nagu degdegaya meesha qashinku yaalo qof uu sii daba dhiga goobaha xasuusan kartaan waxa kamid ah birjeex waa goob la dhigi jiray Sheekh Shukri xarajaadi suuqa gobonimo xusbiga goobahaas oo dhawaad joojino waxaanu ka dhignay in door to door laga dhigo aqalada loogu tago weli may gaadhin halkii waxaan oran lahaa in halka la sii kordhiyo oo hadii shanta shirkadood wax ka badan loo baahdo iyo waxa ay golaha iyaga iyo maayir cabdikariin waan ku tartaaraya inay sii kordhiyaan si ay nadaafadu kor ugu kacdo nadaafadina kor uma kacayso haddaan shacbigu qayb ka noqon shacbigu hadduu tuurayo shay walba waxa weeye nadaafadi ma hagaagayso waxaan leeyahay in lala shaqeeyo maamulka dambe oo maamulka dambe ka shaqeeya qashinka waxa ay kiistirida lagu tuurayo kaasi aynu uga dhamayn lahayn runtii qashinka intaa kala kagamanaan hadhin waxa weeye dhaqaalaha soo gala dawladda hoose uu kooban yahay halkan waxa dokumentigiisu yaala istadigi aanu ku sameynay qashinku markuu aqalka ka soo baxayo ilaa uu gaarayo in la kala saaro oo wixii recycle galaya ama dib loo isticmaali karayana meel la geynayo wixii kalena inta la aasay energy la sameynayo runtii World Bank nagala shaqeeyay halkan waxa yaala istadigi oo dhameystiran lacag wuxuu u baahnaa ilaa 5 milyan oo dollar lacagaasna dee hay'adahan ka sugeynay insha Allah taala waana maamulka naga dambeeyo ku dabageli doonaan taasoo qaybo kamid ah ay shirkado doonayeen in recycle-kiiyo ka shaqeeyaan ay noo yimid oo memorandum of understanding kala seexaday oo aan halkan ku wareejin doono runtii maanta waxaan ugu talagalay in khudbad badan soo jeediyo laakiin xaaladda iyo waqtiga ay marayso wax badan baan ka tagi doonaa oo waan soo koobi doonaa waxaan u gelayaa qaybta waxbarashada waxaanu sameynay siyaasadii maamul daadejinta oo siyaasad qaran ah madaxweynuhu uu saxeexay uu hogaamiyena uu yahay madaxweyne ku-xigeenku siyaasadda maamul daadejinta waxa lagu soo tijaabiyey degmooyin badan baylood baa laga dhigay degmada Hargeysa maadaama ay degmada ugu ballaaran tahay waxa aanu kula wareegnay sanadkii 2018 ilaa 2020 inta baan ka shaqeynay waxaanu la wareegnay 48 iskuul kuna ahaantii waxbarashada iyo xaaladdu aad bay u dayacnay waxaanu ka qabanay waxyaabo badan waayo badnida iskuulada ayaa kalifaysa inay dhibaato badan ka taagan tahay dayactir 23 iskuul baan ku sameynay dhismadeed 3 iskuul baan ku sameynay dayactirka deegaanka dugsiyada labaan ku sameynay kordhin dhismayaal fasalo 8 baan ku sameynay iskuul dhismaha musqulaha maadaama aanu taanu la wareegnaa ay tahay dugsiyada dhexe oo dhalinyartu xilligii ay ahayd ilaa 12 jir ilaa ay noqonaysay xilligaasi
inamada iyo hablahaba waxaan u samaynay dugsiyo iyagoo hablahana qol nasasho oo aanu u samaynay dugsiyada intii aanu ka shaqaynay dhismaha falaxalo casriya oo maadaama xaaladii corona ay jirtay dhismaha waxaan ugu samaynay dhismayaashooda waxaan ugu samaynay dayactirka falaxalo ay ku falaxashaan ciyaalkeena iskuulka dhiganaya kuraas iyo miisas waxaan u samaynay 1987 set oo intaasoo mid kastaba set kastaba ay fadhiisanayaan 3 arday ayaan u samaynay oo dugsiyada aanu ku qalabaynay bixinta waxaanu samaynaa guna kharashaad light biyo iyo in qashinka laga qaado dhammaantoodba intaa waxaa ka fakaraysa dawladda hoose Hargeysa dhaqaalaha ku baxa had iyo jeer waxaa la moodaa inay bahayadu keenaan ama meel kale laga keeno waa cashuurtii dadka laga qaaday dhaqaalaha dugsiyada ee maamul daadejinta boqolkiiba 70 dawladda hoose bixisaa boqolkiiba 12 waxaa bixisaa hay'adaha boqolkiiba 18 waxaa bixiya international community-ga bixiya boqolkiiba 12 international community-ga bixiya boqolkiiba 18 waxaa bixisa dawladda dhexe oo wasaaradda wasiirkeedu halkaas soo fadhiyo runtii markaan qiyaaso sanadkan oo qura waxbarashada iyo caafimaadka waxa ugu jira miisaaniyadda dawladda hoose $1 milyan marka ay 10 milyan tahay dawladda hoose budgetkeedu 3 milyan iyo badh ay tahay developmentka laga shaqeynayay marka 1 milyan laga shaqeeyo caafimaadka iyo waxbarashada intii kale development ee la sameynayay waa garanaysan qiyaasta u haraysa waxaan u gelayaa sektorka caafimaadka waxaanu la wareegnay 32 MCH iyo 10 health post waxaanu ku koolinay muddada sanadka iyo barkii aanu haynay inaanu sameeyno 7 MCH oo cusub oo ay 3 magaalada gudaheega yihiin 4 dibadda yihiin dhismaha ruga caafimaad inaanu ku koolinay 3 hadda dhismahooguna uu socdo 3 MCH oo cusub waxaanu ku koolinay degmada Ibrahim Koodbuur 1 MCH baan ku koolinay maadaama magaaladu meelaha u fidaysa ka mid tahay degmada Axmed Dhagax xagga dusha waxaanu ku koolinay 1 MCH degmada Axmed Macalin Haarun oo iyadna koonaha bariya magaalada u fidaysa MCH si caafimaadka loogu sameeyo waxaanu sameynay cusbitaalo reference cusbitaala uu ka mid yahay ka magaalada Tacabur had iyo jeer waxa ka dhaca shil baa ka dhaca wadada inta u dhaxaysa si inta berber loo qaadayo baakiisa loo soo qaadayo dhibaato badan bay dadku ku tahay degmada Tacabur waxaanu ka dhisnay cusbitaal kaasi oo dhismihiisu uu dhameystiran yahay waxaanu dayactirnay MCH-yadii iyo hugihii caafimaadka noqonayay degmada oo dhan inteeda badan waxayna soo maray 2 sano oo xaalad adag oo ah xanuunkii safmarka ee corona soo maray taasi dawladda hoose Hargeysa waxay noqotay institutionka ugu dadaalka badan leh ee wax ka qabtay halkaa waxaa idinka muuqda gaadiidkii aan ugu talagalay hadday noqoto ambalaasyadii qofku markuu xanuunsado qaadayay cusbitaalka yaalka loogu talagalay geynayay hadday noqoto hadday geeri timaado gawaadhidii meydka lagu qaadayay waxaan aad ugu mahadnaqayaa shaqaalihii u tababarnaa ee hoorkoodu xitaa kaga go'ay muddadaa uu xanuunku xoogga ahaa inay habeen iyo maalinba meydka soo dhaca ay aasaan ay sameeyaan xaafadoodina qof kasta la yidhaha qof dhintay buu qaado corona u dhintay aqalkiisii waxaa la odhanayaa dee yaanu noo soo gelin dhabar adaygoogana aad baan ugu mahadnaqaya sanadkii 2020ga lacagta ay ku bixisay dawladda hoose arrinta coronavirus-ka waa
يلحي سقاشة كون لح بقول يلا واتن مشروع GLBH جنا وحنا جسوا قاري لبي ستة كون ونقولنا صاب بقول كيف ستة يطبق halka waxa aad arkaysaa boqolkiiba 280 in dhaqaalaha ay dawladda hoose iyo cashuurtii ay bixiseen ay yihiin tirada qalabka aan idinku sheegay oo ku gaari maayo inaan shay idinku tiriyo qalabka halkan yaala halkan ay dokumentiga ku qoran oo ku wareejin doonaa wadooyinka markaan u soo galo kun ahaantii golihii naga horreeyey 4 kilomitir bay sameeyeen oo dayactir iyo waddo cusubba leh runtii maalintaanu xilka la wareegnay cabdikariin axmed boogaan makhaati u gashanaya waddada markaanu dhisaynay waddada madaxtooyada horteeda jaygii u yaalay waddada ambassador waddooyinka ka dambeeyay ka dhisi doonaan ku dhigay idmeygii baan isagii khadar ambassador baan ugu tago saar ku waa jaygan idin yaala nasiya amaanaysiya waxaan idin celin doonaa markaan waddada dhamayno waayo idmey baan ayaanu ka gaarsiinaynay inaan waddada dhisno maantana jaygii meel u dooni maysa halkan baa dhagaxa lagu shubayaayo waa kan halkan ugu yaalay halkan baad ka daraysaa maanta waxa halka yaala oo dhex yaala 6228 foosto oo daamuha oo galaan laga daray maanta waad naga nasiib badan tahay cabdikariin oo dhaqaajinaysaa ya runtii waxaan dhisnay wadooyin badan oo asfala kun ahaantii asfal balaan may jirin waddadii ugu hoose lagu bilaabay maaliyadda ilaa waxay ahaydeen ilaa iyo talasom ayaanu ku bilownay tii ku xigtay waxaanu samaynay inaanu ku dhamayno gebi ahaanba koona ilaa koona magaalada waddada dhexe waxaa ku xigtay tii airportka waxaa ku xigtay waddada labaad waxaa ku xigtay waddada Mansoor intay ka tagto national cinema ka dhaadhacda ee haddana ka dhaadhacda iyo tajijee ka dhaadhacda waxaa ku xigtay inay ka bilaabanto dawladda hoose markaad saldhigga ka bilaabato ilaa maxamed mooga ay ku tagto asfala waxaa jira wadooyin badan oo magaalada koona kasta u baxaysay tusaale ahaan markaad soo qaato waddada Siinaay waxay ku joogtay buurta hoosteeda waxaanu samaynay inta hoosena asfal baanu soo dhignay ilaa iyo ay waddada beledweyne halkay kaga dhacayso iyo waddada Salaxle halkay ka leexanayso 5 kilomitir something baanu dhignay halkan waxa xabad ma karayo laakiinse waxaan halkan ku wareejinayaa 229 kilomitir oo nu dhisnay magaalooyinka faan baa looga taagwayaa 23 degmo doorasho ee Hargeysa ku yaala Somaliland ee golayaasha deegaan loo doortay marka la isu geeyay inta waday sameeyeen iyo intaan golahayaga deegaanku sameeynay waxaan u daynayaa dadka research-ka sameeya inay buuga qaataan ayna isu eegaan 23 degmo markaad isu geyso marka Hargeysa laga reebo intii wada laga sameeyay iyo intaan Hargeysa ka sameeynay waxa ka badan degmada Hargeysa halkan waxaan u gelayaa bridge-yada aanu sameynay
biriijyadaanu samaynay waxay isugu jiraan kuwa magaalada dhexdeeda ah iyo kuwa dibaddeeda ah kuwa magaalada dhexdeeda waxaa ka mid ah cawaalo jaroon beerta xorriyadda halka la yidhaha cawaalo jaroon marka looga tallaabo oo irish biriisha waxaa ka mid ah ka boqol jire waxaa ka mid ah ka new york isa ka tallaaba biriishkii saddexaad ee caasimaddu uu socdaa dawladda hoose contribution bay qayb uga geysatay dawladda dhexe contribution bay ka geysatay iminkana dhaqdhaqaaqeegu socdaa maayor cabdikariim waxaan odhan lahaa guddigaasi insha allahu tacaala saynu ka wada hadlay inaad la wado oo insha allahu tacaala biriishkaa saddexaadina uu inoo dhammaado waxaa jira biriishyo ka mida maadaama degmada ibraahim koodbuur ay noqotay intii sane u dambaysayba degmada ugu cashuur bixinta badan hal abaalmarin oo biriisha oo miisaaniyadda loogu daray oo biriish taagana degmooyinka ka baxsan magaalada gudaheegana waxaanu ka samaynay biriishyo ay ka mid tahay carabaydhe ka mid tahay gubata ka mid tahay jaleela ka mid tahay magaalada gudaheegana waxaanu ka samaynay biriish lugeedyo ay xaafadaha laagu ay kala xidhaan ay isaga tallaabaan mashaariicda sida fiican aanu u hirgelinay eanu ku guulaysanay waxaa ka mid ah dhibaatada ugu badan waxay ahayd markaad shaqadii xafiiska soo dhammayso habeen walba in 100 fayl aqalka kugu sii sugayey oo inaad casaynta eegto ood eegto juwanka eegto ood eegto faylka cidda saxeexday oo dhan inaad eegto aanu ka shaqayn jirnay taasoo noqonaysa inaad dee 12 habeenimo kugu gaadho inaanan seexan waxa dhacayay fayl inaan geometry 2 jeer intuu soo caseeyey inay dhimasho ka timaado oo magaalada waxa weeyaan dhulku dawladda hoose mas'uuliyad weyn baa ka saaran dhibaatada ugu badan ee soo dhici jirtay ilaa 93kiina waxay ahayd ee lagu dhimanayay dhul bay ahayd taa dhulka waxaa inaan geometry casayn uu khaldo oo qofka la dul saaro ayuu ka imanayay dilku waxay noqonaysaa inaad habeen walba adoo saa ugu fiirsanayo oo waqada eegaya inaad samayso inuu waqtigu kaaga lumo kun ahaantii fikir dheer ka bacdi 2017 waxaanu bilownay inaanu istaarno inaanu software اللهم وافقنا لما تحب وترضى وزيرك وزارة الرماء قدا يابني قرنك وزيرك وزارة هولها قود وزير كحيجين كحنانة حولها برا صابك قدومي كحيجين كصوص عدير دار تونو هدي بارلمانك لما وزيرك وحبر الشدا ماريها قدومية مسوماسوكا برا صاب كحيجين مايركا مايردا oo maanta cabdikariin noqday meeyirkii hore caasimadda ama meeyirkii hore meeyirada cabdiraxmaan maxamuud caydiid runtii iyo meeyir ku-xigeenka khadar xoogayaha guud ee dawladda hoose xildhibaanada golaha deegaanka xildhibaanadayadii golaha deegaankaanu ka mid ahayne maanta ay ugu dambayso oo halkan rag badan aan ka arkayo oonu hor salaamayo xildhibaan cabdicasiis aadan habane abtigii xasan shahar rag badan halkan ay ka fadhiyaan xildhibaan axmed siyaad rag badan baa halkan fadhiya ilyaas axmed daahir dhammaan intaan ilaababa inta joogtaba 25kii xildhibaan iyo 17kan xildhibaan oo aan dhammaantood wada salaamayo xoogayii hore iminkana xildhibaana dhammaantiin waan idin wada salaamayaa haddaan nin ka tago ninna qaato waa la isyar qaniinaa dhammaantiin waa idin salaamayaa salaadiinta haddaan qof ilaabay salaanta u dagaal badanay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo dhammaan hablaha qaaliga ah dumarka sharafta leh ee halka ka soo qayb galay oo ay ka mid yihiin macahablihii musharaxiinta ahaa salaantu intaa ay ku dhaafto marka u horraysa waa mahadnaq marka u horraysa xafladdan ilaaha weyne waaxidkaa baan u mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa ilaaha golihii deegaanka iyagaanu hayn oo shalayuuna ay ahayd markaannu la wareegnay 2012kii aanu maantana 2021kii wareejinayno ilaaha caafimaad qab nagu simay iyo cimri iyo xilkii oonu sidii u haynay aanu maanta ku wareejinayna siday goluhu noogu doorteen
kow ilaahaasaan u mahadnaqayaa oon la soo koobi karin abaalkiisa mahadnaqa ilaahay ka soko waxaan u mahadnaqayaa intii aan maayir ku-xigeenka ahaa muddadaasoo 9 sannadooda kow golihii deegaanka ee iga dhigay maayir ku-xigeenka caasimadda oo golahaygan maanta ah ayaan u mahadnaqayaa inta ka nool inta dhimatana ilaahay ha u naxariisto waxaa kaloon u mahadnaqayaa si gaara maayirka caasimadda cabdiraxmaan maxamuud caydiid abtigay runtii oonu golahana ku wada jirnay markii horena ahaa xildhibaanka noogu akhlaaqda fiican markii aniga lay dooranayeen maayir ku-xigeenka noqonayey ilaahay ha u naxariistee maayirkii layla doortay yuusuf warsame siciid buu ahaa markaanu 24 sidaa u eegnayna ninka qura ee bahashaasi hayn karaya ilaa dhammaadka dee waa cabdiraxmaan baanu siloo waataa markhaatiba doontii wakaa bahashiisii hayay akhlaaqdiisa runtii iyo meelo badan ay cabdikariin iska shabahaanba hadday eedaabtii akhlaaqda noqoto iyo ixtiraamka aad iyo aad runtii labaduba way ixtiraam badan yihiin wallaahi ammaaniga ma aha labadaynaba aad bay u ixtiraam badan yihiin kiis lahaa 6 bilood ka bacdi cabdikariin meesha waad ka qaadayo iskaga quuso uu ixtiraam badan yahay iska dhamaystaa laga yaabaa mahadnaqayo hadalku iga lumin mahadnaqa ka bacdi waxa kale oo mahadnaqayaa dhammaan ciddii la shaqaysay waxaan u mahadnaqayaa reerkaygii barbar taagnaa waxaan u mahadnaqayaa dhammaan faamiligayga oo dhan oo ay u horrayso dhammaan hooyaday gabadhayda walaaladay inamiya hablaba intaan walaalaanay ee ay barbar taagnaa intii aan xilkaa hayay waxa aanan marna ilaabi karayn oo si gaara ugu mahadnaqayaa kow magaalada hargeysa ee iyaduna ii soo dooratay inaan maayir ku-xigeenka noqdo xildhibaanka noqdo golaha ay doortay iyo reerkaygii markii hore isku kay raacay oo reer aad u ballaadhan iyaguna waxa kale oo aan u mahadnaqayaan mahadnaqa ku gunaanadayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane maxamed kaahin axmed mujaahidka ka nool 5 mujaahid runtii oo si wanaagsan intuu wasiirka arrimaha gudaha ahaa runtii maxamed si sharaf leh oo wanaagsan noola shaqeeyey odaytinimo leh waayeelnimo leh iyo mas-uuliyad leh iyo dee nin ay idinkuba wada mahadnaqlaydeeno dee madaxweynaha somalilan aad baan ugu mahadnaqayaa muuse biixi cabdi mahadnaqaa ka bacdi kow haddaan waxaan ka yar hadlayaa marka u horraysa waxqabadkii waa yar dul marayaa maayirka caasimaddaa jooga inaan ka taabanayaa waxaanu dowladda hoose hargeysa waxaan halkan runtii iyagana aan ka hambalyeynayaa una mahadnaqayaa golihii naga horreeyey ee uu jiciir hogaaminayey ku-xigeenna ka ahaa urcadde halkay soo gaadhsiiyeen baanu ka sii qaadnay wakhtigu nagagamuu lumin in annagoo cadhaysan aanu kolba nidhaa waxba may qabanine annagaa waxaa qabannay golahan dambena waxaan doonaya inaan wakhtigu kaga lumine waxay qabteen un ay sheegtaan waxba annaga cambaarayntayada xumaan iyo wanaag waxaan lahay waa la tagnay idinku waxaa qabataan baa sheegi doontaan insha allahu tacaala iyagana aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa golaha hore halkii aanu ka qaadnay shaqaalaha dowladda hoose aad bay u yaraayeen halkan baa laga sheegi doonaa shaqaalo yaroo marka 3 loo qaybiyo meelo bay ahaayeen 3 meelood baanu shaqaalihii ka dhignay annagoo shaqo abuur iyo u samaynayna tahriibka la dagaalamayna waxaanu samaynay qalabka arkaysaane maanta halkani waxay ahaan jirtay maalintaan la wareegayna meel bannaan oo qofkii dahab buurtaa loogu sheegaa inuu soo lugayn jiray oo uu ka waayi jiray iminkana waa arkaysaan harka aynu ku jirniyo qalabka faraha badane meesha yaalla oo aanu ka keennay meelo aad u fogfog qalabkaasoo dhanna uu yahay asad ay dowladda hoose leeday waxaan halkan si gaara uga sii mahadnaqayaa xildhibaanka qalabkaa gacanta ku hayay oo xildhibaan siista ah iyo baashe injineerka istaag injineer ninkaa baashaa la yidhaha waa ninkii qalabkan isagiiyo ninkaa siistaba aad bay qalabkaa labadaa ninba ugu ammaanan yihiin si gaara waa nimankii halkaa markaanu qalabka keennay xidhxidhkeeda iyo hawsheeda iyo mas-uuliyaddeeda aanu runtii nagala shaqaynayey aad iyo aad iyagana aad baan ugu sii mahadnaqayaa qalabka intaa leeg dowladda hoose waxaa kaloo wareejinaysaa oo qalabkaa faraha badan ee aanu meenta indhihiinnu idiin macalli yihiin aa arkaysaan ka mid a ee warshadda asfalka leh ee karasharkii leh ee wax walba leh waxaa jira waxa ay nagaga nasiib bateen golahan deegaanku GIS-ka waxa uu noqday inay caalamka caasimadda hargeysa ay la tallaabsato in dhulkii la isku dili jiray dhulkii la oran jiray 2 fayl baa ka wada baxay oo runtii haddii geometrika marka la bedelo
aanu annagana noo ahayd uun xadhig iyo shaqakeeri iyo qabsad joomitirkii marka la bedelo ku kale dadkaa uu xumeeya runtii deecasayn labaad ka soo baxaysay annaguna aanu dhaliisha ku yeelanaynay markaanu ogaanana annaga iyo maxkamadu baanu tallaabo ka qaadaynay runtii wuu yaraaday dilkii dhulku wuu yaraaday meeshuu fayl ka baxo fayl dambe ka bixi maayo magaaladiina sistamkeedii xitaa dadkii la odhan jiray dowladda hoose iyo loo kala sheekayn jiray dadka meesha way ka baxday waxa qofku isagoo maraykan jooga ayuu halkaa aabka ka soo qaadanayey qof buu soo dirsanayay waxa la jeegaraynayaa qofka ID-giisa inuu magacu isleeyahay had iyo jeer dadkan dibadaha jooga baasaboorka magac kale ku haystaan kuwa markaa halka joogaanna waa magac kale dhibaatooyinka u badanay dee qolooyinkii qalabkaa nagala shaqaynaya way fadhiyaan ibraahim iyo way yaabeen dad la wada laba magac leh runtii waxay ogaadeen in xaggaana mid kale la iskaga dhiibo xaggana magac kale jiro kaasoo xitaa sistamku diiday dee baalka labada magac diiday ogolaan maayo laba caseemoodna sistamkaasina waa dhaxal weyn oonu ku wareejin doonno golaha deegaanka magaalada hargeysa way idii cayiman tahay badkeedii intay leegta baa idii cayiman inta wadooyinkeeda airportka anigu markaan ingiriiska tago marka ugu horreysa waxaad qaadanaysaa buug yaroo wax tilmaamaya magaaladu waa inay yeelataa wax hadal qoraal oo kale oo wax tilmaamaya halka gaasteeshinku yahay halka hudheelku yahay halka saldhigu yahay halka tareenku yahay meel kaste waxaad ka helaysaa waa GIS-ka runtii waxaana la shaacin doonaayo nasiib u yeelanaysaan magacyadii ama in la sheego addressingkii xaafad nambarkii iyo guri nambarkii iyo second nambarkiiba waa idii diyaaro waa shaacin doontaan haddii ilahaydha runtii qalabka noocaas oo kale waa cadow badan yahay ina hareeraha ka taagnaataan oo sii adkaysaan baanu idinka rajaynaynaa haddii ilahaydha waxyaabaha sidaa u wanaagsan way propaganda badan yihiin way dhib badan yihiin waayo systemka wanaagsan cidna ma ogola runtii idinkuna waydu arki doontaan qalabkaasi waa mid aanu soo kordhinay dowladda hoose GIS-kaasina waa waxaanu soo kordhinay waxyaabo fara badan oo dee hadalka waa laysoo hambeeyaa kolley baayirkaan u hambayn doonaa haddii aan waxqabadka saddexdaa eelooda aan kaga tago waa badanya waxqabadkayguye waxaanu samaynay iskuullo fara badan 45 iskuul baanu qaar aanu wax tarnay u fadhiyaa wasiirka waxbarashadu ayay ka kooban yihiin iyo qaar aanu duwahabeyn ku samaynay iyadoona xilli dhaweydoo ID-nkii la wareegnay waxyaabo fara badan bay dowladda hoose MCH aanu samaynay waxaasoo dhan dib baa u dhigi doonaa haddaanu yar wecdo iyadana xagga siyaasadda runtii intaan horta joogay labadii shay aana ilaabi karayn intii aan maayir ku-xigeenka ahaa 9 sannadood naxdin iyo farxadiba way soo martay waxa igu naxdin badnayd ilaahay ha u naxariistay isagii intii ummadii nebi maxamed be maalintii anigoo markii horena la yidhi golaha anigaa ugu yaraa waxaan ahaa maayir ku-xigeenka ugu yar golaha deegaanka maalintii 29 jir baan ahaa khibrad wanaagsanna waan haystoo dhowr iyo 10 sannaa markaa dowladda hoose joogay marka lagu daro 9 sannadood 23 sannadood baan joogay maanta inaan idintusaabaan doonayay 1997 bishii 5 warqaddii laygu shaqaaleeyey ee uu qoray ilaahay u naxariistay cali xasan maxamuud oo xilligaa maayir ahaa cali asad oo maalintaa laygu qoray karaani layga dhigay waa 24 sannadood oo khibrada ilaahay baan ugu mahadnaqayaa anigoo maanta 39 jira inaan haddana 24 sannadood oo khibrada haysto waa wax aad u weyn ilaahay agtiisa ilaahay baan ugu mahadnaqayaa maalintii igu naxdinta badneed waxay ahayd welibana golaha ugu yaraa ahaana maayir ku-xigeenka qulaatee teeramkiisii dhammaystay aniga dee maayirkaa horena uu naga dhintay markii dambena cabdiraxmaan baanu dooranno waa kaanu wada dhammaysanay golihii iga horreeyey 3 maayir ku-xigeen bay marayeen maalinna mooshin laygama keenin waa kaftan badanayo shaqada laakiin aad baan ugu adkay maalin xitaa xildhibaanadaydu waa kuwaas aynu ridna iskumay raacin dee nin wax yar damaaciyo daha dabadiisa meelaha ka yidhaa ku-xigeen baan rabaa u jiraya laakiin nin isoo hor fadhiisto yidhi maayir ku-xigeen baan rabaa walla yidhaan u jirin iyo eedu ii soo sameeyo dee macquul ahaydba waayo ninka madaxdii waa inuu haas ka kaftamabe waa inuu gacantiisa ilaaliyaa wuxuu saxeexayo ilaahayna wuu ni ilaaliyey haddaba waxa igu naxdin badnayd anigoo leelahaa inay yar baatay maalintii aan noqday maayir haddana maayirkaygii muddo yar ina injineer yuusuf warsame siciid uu xanuunsaday oo muddo yaroo dhowr wiig isagoo nala joogay aan 3 bilood haddana taariikhda noqday maayir iyo maayir ku-xigeenkii isku hayay 3 bilood maayir iyo maayir ku-xigeeniyeen ka badanba ilaahayna ku ilaaliyey meel khatarana aan saxiixin runtii maalintii haddana laygu yidhi intuu ilaahay igu adkeeyey telefoon nagu soo dhacay cabdiraxmaan buu ahaa qofkii ugu horreeyey sheegay in maanta caawa maayirkii ay tiisii noqotay horta markaasay igu naxdin badnay oo haddana maayirkii dhintay dee waa yar naxdin weyn runtii naxdintaasaa igu weynayd waanu xallinay waanu is eegnay rag baa la tashaday
ninkii noogu wanaagsanaa noogu macquulsanaa baanu markaa keenno cabdiraxmaan runtii waxa dhacday taasi waxa ahayd naxdintii u weyneed ee iga soo martay golaha farxaddii u weyneed ee soo martay intaan golaha joogayna qaranka oo dhan bay iga soo martayoo wallaahi waxay igu farxad badnayd yanaa maalintii madaxweynihii jamhuuriyadda guddoomiyihii xusbiga kulmiye aanu dhisaynay maalintuu 80 kun oo cod labadii xusbiye kale kaga badiyey ee la yidhi muuse bixi baa madaxweynaha horta intaan maayir ku-xigeenka ah maalintaasaa igu farxad badnayd ilaa run baa sheegayaaye maalintii igu farxadda badnayd igama aha guulwadanimo wallaahi waa iga daacad maalintaasay igu farxad badnaydoo qof waliba wuxuu jecel yahay tacabkiisii inuu arko runtii maalintaasina maalintii igu farxadda badnayd baa maanta oo ay dawladdii hoose aanu maanta naga dhammaatay horta waxaan jeclaan lahaa maanta in annaga iyo xusbiyadaba ay naga wada dhammaato ay golaha deegaanka xusbiya ka soo baxaan inay ururadii ka soo baxaan nimankaasi ayaan jeclaa laakiin waxba ma dhaanto oo horta dee maalin dhaweedoon hadlaya baan lahaa ninkii dunida loo deynaya ha igu diirsado ee waxaad iga dambaysaaba hebelow waa dayrta maanta horta dayrtii unbay iga dambeeyaan tiina waxba ku tiigaali maayo 6 bilood ka bacdi ururadaa la furanaya maayir ku-xigeenkii burcaa yidhi anigu urur baan furanayaa buu yidhi waar annagu furan maynee muuse biixiyeyna kaahin baanu barbar taagnaanaynaa taana halkaasaa ka caddaynaya may maqlaysaan iyagaanu barbar taagnaanaynaa labadaa nin ee waaweyne waddanka u soo halgamay runtii ee dee haddii abaal u la celinaayo faqashtiina in laga kiciyey ayaynu barbar taagnaanaynaa dekedahana furay maanta ee aan maanta waxbaba doonayn inay waddankooda oo faraxsan arkaan raggaasaanu barbar taagnaanaynaa xusbigay labadaa nin furtaan kulmiyahoodaasaaanu weligood la joogaynaa haddii uu madaxweynuhu xil loo dhiibana waanu la joogaynaa haddaanu loo dhiibinna waan la joogaynaa taana waan caddaysanaya waxay noqotay ma ismaqlaynaa soo ismaqal ma jiraa haddii ay noqoto waxa kale waarnimayo halka maalin dhaweyd waan dardaarmay waan baanay waxaan idhi waxaan ka soo jeedaa qoys 400 sannadood talinayay ab iyo abtiba sandalad baan ka soo jeedaa waxaan idhi war labadii inan ee baarlamaanka hal la dhex gala baan idhi lama dhex gelin taladaydii may noqonin taladaydii lama qaadanin nin weyne waa kii taliya taladaydii ma arkay inay qaadanayaan nimankii mucaaridka ahaa waxaan leeyahay haddaba xusbiyadii inamadii urur ka soo xildhibaanadii soo baxay labadii xusbi mucaarid way diideen inay inankii cabdirasaaq qanciyaan cabdirasaaqna ma waan arkaayo isna diid inuu qancaan u malaynayaa waa kaa dee meelaha ka hadlayaba waxaan leeyahay xildhibaanka anigoo uu sharafiga mudan yihi xusbiyada mucaaridkaa waxaan leeyahay dee horta baashii waabay dhacaysaayo ilaahay baa la hubaayo kulle kulmiyuun baa la hubaayo inuu sooba noqone nin waliba ninkuu doonayuu hubaaye waxaan leeyahay ninkii faratoon ha la dhiso faratoon baa guddoomiyaha baarlamanka noqonaya ku-xigeenkanayna kaa cabdinaasir baa noqonaya insha allahu tacaala baarlamanka waxaan leeyahay waar ha u xidhnaanina xusbiyada ha u xidhnaanina baashii waa la furayaaba hadhow toole waxa ku biiri doontaan uunkii soo hadha sharcigaa idiin dhigayna kaa ku biirtaan uunka soo hadha noqonayo waxaan idin leeyahay ilaahay ka baqa ninkaa weyne sharafta le doorta ee faratoon wallaahi inaanan anigu arrin iyo adduun waxba ka doonin waa nin qiimo badan waa nin weynoo somalilan dara waar ninkaa doortaan idin leeyahay intaana waxaan kaga baxay tii faratoon waxaan leeyahay cabdikariim iyo maayirka cusub cabdikariim waxaad ku soo baxday iska hor fiican waxaad ku soo baxday 26 kun wanaag fara badan baad ku soo baxday hargeysi aad bay kuu soo dhoweysay runtii nin dhal mujaahida baatay isna nin fiicana ilaahay baa kuu qoray inaad ku soo baxdo kaama abinayo waan ogahay inaad dadaal badantay karti badantay waan ogahay inaad cabdikariin oo wax qaban karto waxaan kuu adiga ku leeyahay runtii sida wanaagsan iyo ixtiraamkaad u dhalatay golahaaga adigoo wuxuu hirgeljiru gudinta halku ka goynayo garanaya ayuu haddana idhaa xaggeen ka gooyaa golahaaga iyo ku-xigeenkaaga hayso ku-xigeennada cuqdeed yar baa ku dhacdo anigu waa ka dawoobey hadduu cabbaarku yar waayo wuu dawaqayaa wuxuu soranayaa maayirkii muxuu talow kala jiraaya runtii ku-xigeenkaaga iyo golahaaga hayso khadar masaajidkaan isku barannay waa inan fiican reer calimasaajidka calimataan baan isku ahayn ninaan ka dee isaguna maaha runtii waa nin aad u wanaagsan oo wadaada cabdikariin waxaan ka codsanayaa nasiibkaa idi siiye maayir iyo maayir ku-xigeen inaad 17 nin u noqotaan rag idiga fiican baa ku jira rag wanaagsan baa ku jira nin kastaa wuxuu reerkoodii iyo magaalada kaga kaabeengareeyey inuu maayir noqonayo ula hadla oo u ixtiraama
رجعوا نوح دقيقة احترام كان هذا يقولي بعد تكرين ها واضو دلتي احترام إنما ده أوني كستي احترام فكر كخلدنا حل بانكو كولي ما ضدت كاكولا ور هاللي قاروا لفقوا واحد ترى حل ما واحد سوي خلديني يقدر ولا رنتي واحد الله يحل بعضنا وردا ده رديدا كنت تقينا هدي ما عنده ويتولى اللي يدي ويفرنتها يوبرجي ورا رمى جودها تشوشي تشتري رديدا إمي كسر رمي جودو ويفرطي ما معناه هذا ده مركب عبد الكريم يريده وأنا كان اللي عيله بتقول بقول شو هاي تتكاس كل عيله وعارف الله هذا وردينا إسكات شوغان إمي كنا الصومالي أنا ودنا أنا كواحد نرد ما يستحيل ما يردي مرة لا وضع دورتي وإسكات كونك سنة ولا برتي هدي عبد الكريم يقدر ونك سنة هذا إذا كواني ديوجي يورق ونك سنة متعلمين تينور دم يزن هدي يتشارو قبل عبد الدجال كوسكوشاندين توه الرئيس جودية ده كلمة دانك قبل حيوي تانا عبد الكريم وكفر سو تيم كدول كي وابا لقى حلو تا ما شاء الله قدوم تدوي كابير تو وحوقوا حلو جودي ده إيش أنت تكدي تو قولها أنت كلك وقول على تينا متشرتوي مكوا كادول كي لير تشوشيه بقى واسك فرن دونتان هل متبان قولها هاني دي دردارية waxa cabdikariin oo wada shaqeysaan wasaaradda adiga iyo golahaagu hawlaha guud dhulka ka wada shaqeysaan hadaa wax iska diidaan wasaaradda ganacsiga liisamada ka wada shaqeysaan wasaaradda arrimaha guduhu waa wasaaradda u mareysaan dhammaan dawladda oo dhan waxaan idin leeyahay wasaaradaha ay isku dhacdaan ama xildhibaanada isku dhacaan TV-ga waxba ay isu marinina qoraal isu qora maxamed kaahin u taga wasaaraddiina arrimaha gudaha u taga haddii ganacsiga liisamay isu qabsataan iyaga u taga barasaabkiinni baa jooga jaamaca Axmed oo nin aad u wanaagsana halka mara oo wasaarad kasta waxa iskaga qabsataan wasaaraddiina mara waa isku dhici doontaan oo anigu laakiin yaanay TV noqonin saddexdii bilood oo horeeyay isku dhici jirno mar dambe kamarada isku maandaan dhicin anagu dawladda runtii waxaan kaga baxayaa xoogayaha idila joogaana waa nin wanaagsan runtii mushaarooyin fara badan buu markiiba bixiyay aad yani waa nin daacada si fiican in cabdikariin iyo wada shaqeyn doontaan qadar iyo golahaba xoogaye gooli xoogayaha tahay raggaa sidaad noola shaqaysay si ka wanaagsanba inaad ula shaqayso waxaan halkan ka cadaynayaa kamaradaha hortooda iyo dadweynahaba 24 sanadood khibradda ahaayada aan lahaa waxaan ballan ku qaadayaa inaan cabdikariin iyo qadar iyo golahaba si daacadnimo loo wanaagsan aan u barbar istaagi doono haddaan xil qabtiyo haddaana qabanba inaan talada wanaagsan ee walaaltinimada leh ee waayeelnimada leh waayeelku waa caqliga ma hadaada talada leh waan la barbar istaagi doonaa haddii ilaahayda si niyadaan u soo dhaweyn doonaa waxaan kaga baxayaa nin baa yidhi arkay nin madaxoo meel ka tegayo nin kaloo madaxa leh waan ku barbar istaagi doonaa si fiican baa kula qaban doonaa talo fiican baa ku siin wuxuu yidhi isagu intuu meesha joogay mutalada fiican wax ku qabto maaha inta arrinku waxa weeye arrinku intaad meesha joogtay wixii aad qabatayna qabatay wixii kaa dhinaay aad doonaysay inaad qabatay iyo hiigsigaagii ayaad horta qofka siinaysaa midna maanta waa indiga shaahil saaraya wallaahi qofku markuu soo gaadho meelahan aan taagannahay marka lagu doorto markaad wasiir weyn oo shaash la noqoto sida maxamed markaad maayir noqoto waxa ka baxaysa xumaantaba sidii nabi maxamed alayhi salaam garanaysa malaga loo soo diray xumaan looga siibay xumo oo dhan baa ka baxayo uqdad iyo qurun iyo qofkan ku xumeeyo wax uu sheegiyo wallaahi way ka baxaysaa Soomaaliland ha noolaato maayirkii caasimaddu 8 sano ka bacdi uu xilkii ummadan u hayay wareejinayo sidoo kalena soo dhaweynaysaan golo deegaan oo cusub iyo maayir cusub iyo maayir ku xigeen cusub waxaan maadaama waqtigu uu daahay madaxda qaranka magacyadooda waan ka durdaaran wada sheego way waqti badan baa inaga lumaya golaha wasiirada intay nagala joogta ugu horeeyay wasiirka arrimaha gudaha ayaan idin salaamayaa wixii idaabaada ee ahayd inaynu kala horreysino magacyada iyadana sidaasaan markaa ku soo koobaya maayirkii hore ee caasimadda waan sagootiyayaa waxaa kaloo sagootiyayaa maayir ku-xigeenkii hore waxaan sidoo kale sagootiyayaa markii hore xeerku wuxuu odhanayay xildhibaanadii hore ee iyaguna 8 sano soo joogay golahan ayaan sagootiyayaa khayr baan ku sagootiyayaa cabdiraxmaan kama sagootiyayo golahan cusub uu ka mid yahay waanu nasiib badanahay in waayo aragnimadii cabdiraxmaan ay nala joogto halkaa
waxaan cabdicasiis maayir ku-xigeenka oo dardaarmay u sheegayaa golahan aan hogaaminayaa ma noqonayo mid farfadho xumaantii iyo hadalladii hore oo kale marka ololaha lagu jiro hadallo badan baa la yidhaahdaa annagu awowgeyna waa ogyahay ilaahayna waa ogyahay cirdiga iyo sharafta cabdiraxmaan kamaanaan mid ahayn kuwii wax ka sheegay magaciisa xitaa maanaan soo hadal qaadin waxaanu dhaliili jirnay oo keliyaato uun qabyada ayuun baanu ka hadli jirnay waxaanan ummadda somalilan qof kastoo mas-uula marka la dhaliilayo ka codsan lahaa in lagu ekaado dhaliisha iyo toosinta oo aan loo gudbin cirdiga iyo sharafta qofka cabdiraxmaan golahan cusubi wuxuu siinayaa xurmada uu ku leeyahay inuu yahay maayirkii hore caasimadda wuxuu sidoo kale siinayaa inuu yahay xubin annaga naga mida waxaananu ku siinaynaa inuu yahay odaygii golaha iyaga waxaanu sidoo kale cabdiraxmaan cimri uma hadhin oday reer Hargeysa inuu yahayna xurmada waa ku siinaynaa saddexdaa xurmo waa ka helayaa golahan insha allahu tacaala waa xaqiiqo ololihii waa dhammaaday shaqadiina waa bilaabantay hadalkayga maanta waxaan u hibaynayaa oo keliya shacabka jamhuuriyadda somalilan sababtuna waxa weeye shacabka waa run markii ololaha lagu jiray wax badan baanu u sheegnay sidii bay dhab noogu tahay wixiina waa la qabanayaa laakiin sidaa maqlayseen 2,100 iyo jarjar baa shaqeeya waxay taasi markaa sheegaysaa in cashuurta la bixiyaana waxa weeye markay ugu imika ay tahay 35% inay soo xarooto markaad 35% cashuurta bixiso ee institutionka dawladda hoosena dad intaa leeg ay u shaqeeyaan hubaal waxa lacag badan inay ku baxayso mushaaraad oo markaa mashaariicdii la qaban lahaa ay yaraanayso sababtaa aawadeed baan doonayaa shacabka reer Hargeysa inaan toos ula hadlo haddaad doonayso in wax la qabto arrimo muhiim oo kugu xidhan baa jira arrimahaasaad ka soo baxaysaa insha allahu tacaala annaguna markii ololaha lagu jiray waxaanu ku ballan qaadnay in la ilaalin doono cashuurta lagaa qaado oo ay ku dhici doonto khasnadda markay ka soo baxdana ay ka soo baxayso iyadoo wax lagugu qabanayo waa ballan aanu hortaada ku qaadnay waa ballan aanu ilaahay hortiisa ku qaadnay waa dhaartii aanu marnay shacbiyo waxaa lagaa rabaa inaad cashuurta bixisaa lagaa rabaa waxaa la doonayaa inaad wax ka beddesho habdhaqankaaga inaad caagad biyo ka cabto oo tuudada ku tuurto inaad jaad cunto ood curubta ka goosto ood qoryaha ku tuurto inaad haddii ilaahay idamkeeda leeyahay sigaar cabto ood baakidhka waddada ku tuurto in haddaad suuli weydo waddada aad ku saxarooto inaad xoolahaaga magaalada ku soo daysato arrimahaas oo dhan baa la doonayaa inaynu wax ka bedelo habdhaqanka qofku ilaa uu isbedelana Hargeysa isbedeli mayso waxaa la doonayaa haddaad gaari wadato inaad isbedesho si aad u kaxaynayso waddooyinka magaalada Hargeysa ku yaal waxaa jira waddo wiig kastaba hal qof ku dhinto haddaanad ogeyn maantaba ogow waxaanay taasi ka dhacaysaa mas-uuliyad darro qofka wadaha ahi uu ku marayo waddo dad ay dhex degan yihiin xawaare aad u sarreeya oo aan loo ogolayn sharciguna aan u ogolayn markaa mas-uuliyadda waa inaad qaadaa gaadhi kastaa xilliga uu meeshuu marayo waa inuu ku maraa taxadar iyo mas-uuliyad waa inuu ilaaliyaa sharciga waddooyinka iyo waddamarista insha allahu tacaala sidoo kale waxaa la doonayaa dhagaxa hortaada tuulaneed gurigaaga hor dhigatay inaad ka qaaddo gurigaaga hortiisa xaadho geedna ku beerto berigii hore Hargeysa waxaan jirtay labada guri ama labada sakoo iska soo horjeeda waa la xaadhi jiray waa la rushayn jiray dhirna waa lagu beeri jiray dhaqankii wanaagsan ee Hargeysa lahayd in la soo celiyo weeye dhagaxa intaan lagaa gurin maanta chance haysataa dhagaxaaga meel sii geyso Hargeysa ma dhex oolayo quruxna naga dooni maysid hortaadana buuro dhagaxaana dhigan maysid waxaa lagaa rabaa inaad gurigaaga hor xaadho haddaad xaadhi weydana sharci iyo xeer baa ku qabanaya sidoo kale haddaad tahay wado bas haddaad waddo sixmadda baabuurta koobay keen arrintaa basasku waddada bartankeedu qofka ku dejiyaa waa dhaqan xumo waa habdhaqan xun inaad darawalow beddeshaa lagaa doonayaa
annagana waajib baana saaran halkaan istaagi layd baan ku calaamadinaynaa insha allahu tacaala meeshaa meelaan ahaynna ma istaagi kartid qofna kuma dejin kartid qofna kama qaadi kartid intaan lagu dirin een sharci lagugu dirin een awoodda sharci lagu adeegsan habdhaqankaaga wadow bedel meel ku habboon waddada ka bax halkaa ku habboon ku deji qofka haddii ilaahay idhaahdo dad yahow reer Hargeysow dantaada guud ilaasho waa iskuulkaagiiya ilaasho waa garoonkaagiiya ilaasho waa masaajidkaagiiya ilaasho waa malcaamadaadiiya ilaasho waa dhakhtarkaagiiya ilaasho waa halkaad degilayda ilaasho walaalayaalow qolada ganacsatada baan si gaar ah ula hadlayaa magaalada yar Hargeysa ka dhex ganacsataan ilaahayna wuxuu idinku siiyey boqolkiiba 25 baa ku nool ummadda Soomaaliland ku nool boqolkiiba 25 baa Hargeysa ku nool taa macnaheedu waxa weeye markaad ganacsado tahay waxaad u baahan tahay inaad ka dhex ganacsato magaalada Hargeysa markuu roobku daawo aad og tahay dadkaad ka ganacsato labada bridge way ka xidhmaan meel maraana way waayaan maalka alla ku siiyey sadaqa ku waajibtay si aad masaajidkaba u dhisto nala dhis hal bridge insha allahu tacaala bridge cusub ganacsadaha ugu horeeya qaata go'aanka geesinimada lana annaguna waa u ducaynaynaa ducada madaxnimada waa kacdaa shacabka reer Hargeysana waa u ducaynayaan insha allahu tacaala shirkadda qaadatana waa u ducaynaynaa annaguna doorkeegaan ka qaadanaynaa iyo hayntayada iyo cashuurtaa soo bixisaan wixii halkaa ka gelaya waa ka qaadanaynaa haddaanad biriish awoodinood ganacsato alla wax ku siiyey wadda nala dhis hadday waddada kugu adag tahay hal meeloo biyuhu taagay in drainagekii lagu samayn lahaa nagala qayb qaado insha allahu tacaala hadday intaasiba kugu adkaato hal iskuul dhis hadday kugu adkaato MCH dhis haddii kalena khayrku waa kuu batay isbitaal weyn dhis dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland maangaar ula soo baxay war way doorateen meeshan ilaahay ka soo idinka ay keenay qabiiligu maydaan dooran xuduudaha qabiilkaas kiigu gudubteen daan walba way iga codayseen mas'uuliyadda weyn baa ay saarteen insha allahu tacaala anigoo matalaya 16 xildhibaan ee kale mas'uuliyaddaana saarteen waa gudanaynaa xildhibaan kasta cod buu helay codkiisii ayuu anigii igu sii codeeyay taa macnaheedu waxay tahay waxaan maayar ku ahay codkii Hargeysa oo dhan oo waxba ka maqnay dhalinyarada Hargeysa ay xamar oo waxaad aragtay ka dhacayaan waad aragtay dhalinyaradooda oo dadaalaysa oo wadada qurxinaysa wadada rinjiyeynaysa wax ku diiday adigana ma jiro inaad magaaladaada qurxisato gacan baad naga helaysaa waanu ku taageeraynaa ummadana waanu u sheegaynaa waxaad qabatay ha sugin ee maanta ka fikir hal mashruuc oo bilicda Hargeysa wax ka taraya annaguna waxaanu ku ballan qaadaynaa inaanu ku siino gacan intii suuragala haddii ilaahay yiraahdo insha allahu tacaala markay ugu yar tahay 12 habeenimo markay gaadho shaqaale kooban oo mushaar fiican qaadan ayaa wadada ku xaadha adigoo hurda 12 habeenimo habeenka khamiista soo kac wadada la xaad ciida kala gur wax weyn bay taraysaa insha allahu tacaala labada bridge ee magaalada Hargeysa haddii aad maanta marto ciida dul saaran waad og tahay inaad ka qaadda adigoo dhalinyarada Hargeysa sharaf bay ku tahay geesi baad noqon ummadaanu ku horkeeni inaad ummadaada wax gashatay baan u sheegi doonaa ha sugin dawladda hoosuna wax qabatee fadhiga ka kaco samaysa magaalada jecel inaad ku noolaato doorka aan ku leenayna waa ka qaadanaa gacan waa kugu siinaynaa hawsha mutadawacnimada waayo waxaan doonaynaa inaan soo noolayno dadaaladii la samayn jiray ee iska wax u qabso Hargeysana waa ku dhisaynaa insha allahu tacaala Somaliland iyadoo isku duuban iyadana baaq baan u dirayaa magaaladani waxay noqotay caasimadii jamhuuriyadda Somaliland markay noqotay caasimadii dastuurku sheegay meeqaam gaar ah bay yeelatay mudanayaasha baarlamaanka la doorto xeerkii caasimadda jamhuuriyadda Somaliland waa la idinka helaa
hargeysa ama waxay noqonaysaa un magaalo dadkii ku noolaan jiray ay iskaga nool yihiin oo inta magaalooyin kale laga qabto laga qabanayo haddii kalena waxay noqonaysaa si sharcigu dhigay caasimadii la wada lahaa ee jamhuuriyadda Soomaaliland xeer baana taajidinayo qoraya xeerkaas waa inuu soo baxay insha Allah ta'ala sidoo kale waa inuu jiraa qorshaha qaranka ee horumarinta caasimadda qarankani waa inuu ka yeeshaa qorshe cad caasimadan iyo isbedelkeeda annagana kaasaan raacayna insha Allah ta'ala haddii Ilaahay yiraahdo shaqaalaha dawladda hoose waan idin ducaynayaa maanta ay ka bilaabmaysaa hadday isleedihiin qoladan cusub ee imanayso waa la idinku soo diray qabiilkaaga ma naqaano qoladaadana ma naqaano aqoontaada ma naqaano berri baynu isbaranaynaa insha Allah ta'ala dadaalkaaga aqoontaada daacadnimadaada jacaylkaad hargeyso u hayso waayo aragnimadii inta dawladda hoose joogtay ayaa iskeen baraysa insha Allah ta'ala isbedelka institutionkana adigu kugu xidhay insha Allah waynu wada dhaqaaqaynaa dhaqaaqa laynaga filayeen wada dhaqaaqaynaa insha Allah ta'ala harin adigu ha isreebin adigu ha is-eriyin adigu shaambal ha isku dhufan qof wanaagsan baa to adoo wanaagsan baad dhalatay magaaladaada u shaqaysay waa lagu sharfayaa waxaad xaq u leedahay waad ku helaysaa laakiin dhaqaaqii baa kugu xidhan marka waa inaad nala dhaqaaqdaa insha Allah ta'ala hargeysa baan kelmad odhanayaa iyana hargeysa waadna dooratay 17 xildhibaan wax badan bay kugu yidhaahdeen waan qabanaynaa maanta laga bilaabo hargeysa xaggaygay soo eegaysaa waa ognahay laakiin waad nasiib badan tahay oo golahani maalmihii tagay ka fadhigii waa u furan yahay shirar joogtaa buu ku jiray waxaan golaha ugu mahadnaqayaa ragga sharafta leh karaamada leh layla doortay inay maalmo u fadhiyeen inaanaan noqon qaar intay kuraasta beri fadhiistaan ku dul fikira qorshihii beri laga bilaabo lagu shaqayn lahaa inay u fikireen oo ay fadhiisteen oo ay rogrogeen oo ay dhinac walba ka eegeen oo ay kii hore eegeen oo ay maalmaha waqtigana ilaaliyeen intii loogu talagalay waqtigana ay bixiyeen waxay kuu sheegaysaa inaad heshay golo deegaan oo raba inuu isbedelkeenu kuu shaqeeyo raggaa qiimaha leh indhaha hargeysa intaba mas-uuliyad gaara aniga shakhsiyan iga saaran isku wadka xildhibaanada iyo taladu inay tahay shura anigaa layga rabaa shacabka reer hargeysana insha Allah ta'ala indhahooda wax ka farxiya arki doona laakiin inta aanad samri karahayn aad sugi karahayn iska sii dheh waxaad oranayso laakiin maalmaha kamida waxa hortaada iman doonto in lagu shaqeeyo shaqo wanaagsan lagu qabtay insha Allah ta'ala dadka reer hargeysa waan ogahay maanta marka la caleemo saaro inaad doonaysaan inaad marti qaadaan na sharaftaan gubbaati waan ogahay way idinka geysan tahay hawshan la sugaysa ogtiin ee naga filaysaan baa badan markii la iscasuumana saacado badan baa luma idina waa ogtiin annagoo saacadaha u turayna annagoo saboolka eegayna waxaanu go'aansanay waa go'aan golaha ka yimi inaanu idinaana casuumadahaasi waa idinka geysayn dadka dibadda ku maqan iyo kuwa gudaha joogana waxaan u sheegayaa xafladna loogu dabaaldegayo waxbaa samaynina lacagta yar ee xafladda ku samaynaysaan waa soo diri kartaan annaguna insha Allah ta'ala meeshay ku baxday ayaanu idinla soo wadaagi doonaa insha Allah ta'ala yaa laga dabaaldegaa yaa se loo dabaaldegaa meeshan cid guulaysatayna ma jirto cid laga guulaystayna ma jirto hargeysa way wada guulaysatay waa taa mid ah midnimada hargeysa ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu doorkiisa ka qaatay ee uga mahadnaqayo cid gaar ugu dabaaldegi kartaa ma jirto waa la wada leeyahay waa la wada ilaashanayaa
maayarkaygii hore oo maanta sagootinayna waa ku soo dhaweynaa guluhooda u yahay markay sidaa tahay insha allahu tacaala waxaynu dabaal degaynaa inagoo abaal marayna kuwa dhulka inoo xaala ayaynu dabaal degi doonaa insha allahu tacaala degmooyinka Hargeysa waa ismaqlayseen anigu idinmaan sheegin nin waliba cashuurta wuxuu ku soo daray waa la sheegay sidaa markay tahay la isu dabranaan maayo tartan baa la gelayaa degmo waliba cashuurtaada bixi dabeetana cashuurtaada wax lagugu qaban doonaa insha allahu tacaala waayo dee haddii sidan la isugu sii huursanaado adeer annaga laftigayga ila waa nala dhaliilaya waa nala caayaya yaa wax noo dhiibtaydu waa saxdarnimo ku saxay cashuurta iska soo bixiya degmo walaybana marka shaqaalahaaga maamulka lagu soo daadajiyo ee guddigii horumarinta degmada oo dadka ka socda lagu sameeyo adigu dhaqaaq cidna ha sugin isbeddel degmadaada ka keen Hargeysana waa halkan kaga baxayo wasiiradu waa daaleen raalli ha layga ahaado Hargeysa ma soconayso inay noqoto xafiis dawlad hooseed oo maamulka oo dhan ku soo ururo isku bixin mayso kuna horumar mayso sideed degmada maamulka waa loo daadajin insha allahu tacaala dabeetana way tartamayaan sideed dawlad hoosaad oo yaryar bay noqonayaan degmadii wax qabsato waa la abaal marinayaa shaqaaleeda la abaal marinayaa horumar baa lagu abaal marinayaa daadir horumarka ka qayb ah insha allahu tacaala inta marka laga yimaado war waxaanu idinka codsanaa ducada wala la soo duceeyo dikii Hargeysa qurux badan rabow ducada soo raaci nigi Hargeysa qurux badan rabow ducada soo raaci insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka baryaa 16 kaanin oo sidaa 17 keegaas oo sidaa u midaysan oo waxay ku faanaan haya oo inta Cabdiraxmaan sheegtay ama in leegama lama laab ka sheegan karaya inay halka markaa idinku yimaadaan insha allahu tacaala dilay halka ugu dambaysa waxaan kaga baxayaa Cabdiraxmaan iyo golihiisii hore iyo maayir ku xigeenkow annagu noqon mayno qaar halka dhigteen iyo wanaaga aan sheegteen inta qabatay waa quweyneynaa insha Allah waa sii hagaajinaynaa wixii inaga qabiyo waqtigu ka soo gaarina waa nala dhamaystiray sanadooda la joogta insha Allah taala halka ugu dambaysa gabagabo Hargeysa hal midoobo qabiilka la iska daayo xaafadu ha dhamaato inagoo reer Hargeysa aynu gobcays qarsanayna Hargeysa waa bedelayna wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu horeeyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha deegaanka xildhibaanadii hore maayarka iyo maayar ku-xigeenka cusub maayar ku-xigeenkii hore iyo maayarkii hore dhammaan marti sharafta haweenka iyo dhalinyarada iyo mas-uuliyiinta kale iyo odayaasha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa waqti dambe ma badinayo hadalka munaasabadda qiimaha badan ay xilka kula kala wareegayaan golihii deegaanka ee caasimadda Hargeysa iyo golaha deegaanka cusub ay kula hogaaminayaan labadii maayir waa munaasabad badan taariikh badan baa laga warramay Somaliland waa dal curdina ilaa iyo maalintii aynu ku dhawaaqday qarannimadeena dalku uu dhismayay maalinba tallaabo aynu hore u qaadaynay cid waliba tallaabooyin iyo tacab bay ku darsatay qaranka waan uga mahadnaqayaa maayarkii hore caasimadda iyo golihiisa deegaanka oo wax badan oo la taaban karo halkan ka sheegay way ku soo kordhiyeen caasimadda Somaliland iyo maayar ku-xigeenka Cabdilcasiis runtii waxay qabteen wax badan oo la taaban karo Roma maalin lama wada dhisin dalkeenu waa dal curdina qabyo badanina way jirtaa golaha deegaanka ee cusub ee hogaaminayo maayir Cabdikariin iyo maayir ku-xigeenkiisu waynu soo dhawaynaynaa waxaynu ka rajaynaynaa inay halkaa kasii ambiqaadaan tacabkii iyo tusaalooyinkii iyo higsigii golihii hore deegaanka ay qabteen haddana yar ugu noqdo
maayarkii hore caasimadda cabdiraxmaan maxamuud caydiin soorteelko oo aan wada shaqaynaynay muddo 4 sannadood ku dhow iyo maayar ku-xigeenkiisa cabdicasiis runtii waxaan ka markhaati furayaa cabdiraxmaan inuu yahay nin dul badan oo gulgulshaaya oo runtii isku waday golaha deegaanka oo maalin aanan arag isagoo cadhaysan iyo isagoo ay qof ishayaan ama isiifayaan waxaan markhaati ka ahay inuu ahaa runtii nin ku dadaalayay inuu wax qabto oo wax badan inagu qabsoomeen laakiin caasimaddu way ballaadhatay dad badan baa isugu yimid way koraysaa hawlaheeduna ma yara waa idinka arkaya percentage-ka cashuurta ka soo baxa ee uu ka warramayo waxaa looga baahan yahay dadweynaha haddaad doonaysaan in wax laydiin qabto inaad bixisaan cashuurta dalku cashuurtu ku dhisan yahay dhammaantii hadday tahay dowladaha hoose iyo dowladda maayarka cusub cabdikariin oo ah nin dhalinyaro ah aad iyo aad baynu soo dhaweynaynaa niyaddana waynu wanaajinaynaa inuu ilaahay ku garab galo oo uu ku guulaysto hambigiisa iyo hegsigiisa ayaynu ilaahay uga baryaynaa isaga iyo xildhibaanada kale xilkuna waa mas-uuliyad iyo ammaano sidaa uu ka hadlay ammaanadu waxay u baahan tahay 4 shay inuu qofku aqoon u leeyahay waxaanu ka shaqaynayo inuu dadaal iyo karti leeyahay inuu ammaano leeyahay oo ay ka ammaan galaan wixii ummadda u dhiibay intaana runtii waynu ku tuhmaynaa cabdikariim waxaan ilaahay uga baryayaa in ilaahay ku garab galo annaguna gobol ahaan waan iskiin garab taagaynaa sidii aanu la shaqayn jiray golihii deegaankii hore iyo maayarkii iyo maayar ku-xigeenkii hore ayaanu idinla shaqaynaynaa talooyinka iyo tusaalooyinkaanu idinla garab taagannahay waxaan ku gebagabaynayaa waxaynu soo gallay doorashooyin runtii qiimo badan oo caalamku inagu majeertay oo uu xaqiijiyey madaxweynaheena qaranka iyo intii la shaqaynaysay waxaa la soo maray wakti kala guura waxaynu ku jirnaa runtii wakti somalilan ay higsanayso inaynu helo aqoonsigeena caalamiga ahaa oo aynu dhammaan buuxino shuruudihii caalamku inaga sugayay waxaynu ilaahay ka baryaynaa inuu sanadkani noqdo sanadkii aynu hananayna aqoonsiga somalilan maadaama aynu higsigaa leenahay waxaa loo baahan yahay caasimaddeedna inay qurux badnaato waxaa kow ka ah ganacsatadu inay la shaqayso golaha deegaanka annagu waktigii imika kala guurka ee madaxweynuhu noo xil saaray inta labada gola deegaan kala wareegayaan inaanu ilaalinno dhulka danta guud iyo caasimadda dadkii ugu badnaa aanu kulannay waxay ahaan ganacsatada marka naloo sheego meel la dhisayo oo aan munaasib ahayn waxaa noo imanayay qof waayeela ood ixtiraam badan u hayso oo ganacsada waxaan leeyahay ganacsatada cashuurtana ha bixiso dhulka danta guud iyo meelaha runtii magaalada bilicdeeda ka qayb qaadanaya iyo quruxda dalkeennana ha la ilaaliyo aad baan idinku wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin xubnaha golaha wasiirada guddoomiyihii hore golaha deegaanka guddoomiyaha cusub golaha cusub golihii hore ee deegaanka madaxda qarankee kale fadhida oday cali waran caddo in lagu soo biray oo nala fadhiya haweenka iyo dhallinyarada dhammaantiin salaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu marka ugu horraysa aad iyo aad waxaanu ku mahadnaqaynaa xafladdan qoladii inoo soo abaabushay raggii halkan ka hadlayna si aad iyo aad u fiican ayaa looga wada hadlay maanta waxaynu xilka u kala wareejinaynaa maayarkii hore iyo ku-xigeenkiisa iyo golaha cusub guddoomiyahoodii maayarkana ah iyo ku-xigeenkiisa waxaynu sagootayaynaa golihii hore waxaynu soo dhowaynaynaa golaha cusub waxaynu u baahan nahay had iyo jeer bini aadmiga dowladaha mar walba qarannimada waxaa lagu ilaashadaa taariikhda qarannimada lagu ilaashadaa qaranka aan taariikhda lahayni waxa uu noqdaa qaran lumay waa sida ay ku luntay xorriyaddeenii 1960 aynu hellay maanta somalilan waxaynu joognaa maayarkii hore ayaynu maayarkan u kala wareejinaynaa dhammaan 23 degmo doorasho ayay somalilan leedahay
22 degmo doorashadii ka dhacday 20 degmo ayaa golo degaan laga doortay 3 degmo ee hadhay waxay noqonaysaa meeyaradooda lama dooran golo la doortayna ma leh wasaaradda daakhiliga magacaabaysa iyaga meeyaradooda maalintii u horreysay ee Somaliland lagu dhawaaqay ee Burco lagaga dhawaaqay shirweynihii asaasiga ahaa ee madaxweynihii ugu horreeyay Cabdiraxmaan Axmed Cali lagu doortay ilaa iyo maanta maalinba qof baa mas'uuliyadda soo haya hadduu madaxweyne yahay hadduu wasiir yahay hadduu barasaab yahay hadduu meeyar yahay Somaliland maanta aynu arkayno ee laamiyadu dhex yaacayaane laydhku ordaayo ee sidan ah Somaliland iskama imanina nin waliba maalintiisa inbuu ku soo daray Cabdiraxmaan intiisii buu ku soo daray محمد إبراهيم عقالنتي سيبو كسودري إلهي لبدا وحاو نحرستو داهر ريالي انتي سيبو كسودري أحمد سيلاي انتي سيبو كسودري موسى انتي سيبو كدري وحالكي بو كوضا ما يرهدا إيا مقالو يكونا وايسلا وضا ميد حلي باك شرتيك دي مقالا واني هرقيسة مقالا هين وحان حسوستا نين فيصل الله ينهدو عواد سمد ورير نوروي ورقي محانكو لهدايي Somaliland dadkii qurbaha hawsha ka waday ayaa wuxuu inoo keenay qoladii u horeysay reer Norway ah Somaliland bukaana waa 19 ka bilowgii Hargeysa wada burbursan bay arkay saddex kamid ah kooma galeen xadintii si allaaliye si aanu nidhaahnaanu garan weyne dhakhtar meel la geeyo farmasi dawo laga soo qaata male meel la mariyo male meel diyaarada dib u saarna male waxa weeye yabkaasay ku soo socotay maantana meel aad iyo aad u fiican baynu maraynaa waxaynu la soconnaa sidii ragga hore uu sheegay doorashadii maanta aynu gallay aad iyo aad baa adduunyadu oo dhammaa inoogu markhaati furtay waa doorashadii ugu horreysay 100 ilaa 110 qof oo goobjoogayaal ay noo yimaadaan oo 30 ka mid ay dawladda ka socdeen oo 8 ka mid ay full ambassadors ahaayeen waxaan ka warhaynaa dawlado kale oo doorashooyinkoodu imika la filayo inay dawladihii midowga Yurub iyo Mareykanku lagu yiri dalka yaraan la aqoonsanin ee Somaliland doorashadii uu qabsaday oo kala la idinka rabaa Soomaaliya inaynu haro wadno maanta ninka Somaliland ee doorashadeennii gargaroocanaya waa nin aynaan dariiq wada haynin Somaliland waxaan leenahay maanta Cabdiraxmaan daan wasiirkiisii baan ahay inta 3 sano soo maamulayo soo xukumayay sidii dadkii hore uu sheegay run ahaantii waxaan ka markhaati furayaa inuu qof aad iyo aad u degan yahay qof aad mas'uul asalkeedana waxa la yiraahdaa leadershipka ama hogaaminta asaaska ugu weyn waxa weeye inuu qofku deganaansho leeyahay waa la caayaya waa la maagaya waa la xumaynaya waa la xamanaya waxa laga yaabaa marka imika daanigu haddaanan wasiir ahayn oo siyaasaddan ku jirin oo gurigii hooyaday haddaan iska tago walaa waa layla hadlayaa dee maxaa layla hadlayaa mashaqa laygu leeyahay waayo imika cid baan maamulaa hawl baan maamulaa madaxweynuhu cid buu maamulaa سيلاي عدو مامولاي ريال عدو مامولاي إن عقال عدو مامولاي مسبح عدو مامولاي تنو البعض دكتور جسيس كتقول عدي ماجي ميسو مسؤولية اللي شبكة قواعد كده أركان تيدا وجوه الرئيس وحويه إنه قفك مسؤول كأيه قابيه إنه ليه هاي طلقات سياسة ده واحد لا ينهضها علمك السياسة ده تذكر هراو مرينا واحد هذا politics is all about tolerance سياسة ده قبل كده ما وعد كيسشو وضعي صدقات كيسو هذا صوت دوتين واللجوء مظاهرات يا واللجوء ماجي صدقات كيس هذا صوت دوتين عبد الرحمن وحلا يا آدي أدادو مع السطحي لأنه الكور هي قلب كيف كان كي الله ولا 4 مليون يقوقو
ilaa 4 milyan iyo googo weeye cali warar cadaa wasiiraha qalabkan markii ay keensadeen wasiiradii iga horreeyey oo cali ka mid yahay yaasiin faratoon ka mid yahay duur ka mid yahay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waa qori isu dhiibka nin walba berrito mid kale loo sii dhiibaya cabdikariin axmed mooge maalin dhow baynu halkan soo fadhiisanaynayo isagoo xilkii wareejinaya ka dambeeyana maalin dhow buu sii wareejinaya aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa cabdikariin gudoomiye ku-xigeenkii meeyar ku-xigeenkii golaha deegaanka golihii hore golaha deegaanka si aad iyo aad u fiican bay usoo shaqeeyeen xilkii bay nagu simeen maanta hanti bay nagu wareejiyeen aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa waxaynu leenahay maxaan ku dhahday aad iyo aad bay u mahadsantihiin golaha cusub waxaan leenahay waan idin soo dhawaynaynaa golaha cusub sidaa iyaguba sheegeen hawl badan baa laga sugayaa hawl ballan bay ballan qaadeen siyaasaddu ballanqaadkay leedahay marka la tartamayo dee nin walba ballanqaadkiisuu sheegayaa ilaahay waxaynu uga baryaynaynaa inuu ilaahay u sahlo laakiin waxaan leenahay waxaa laga yaabaa ballanqaadkii nin laami ordi maysaana inay qaar idinku soo fadhi xumaadaan oo ay idin fulin kari weydaan ceeb maaha laakiin waxaynu rabnaa inay dadaalaan innakana waxaa la rabaa inaynu la dadaaloo la shaqayno golahan waa golo ka soo baxay axsaab siyaasiya tartan siyaasiya soo galay soo loolamay dabadeedna tiradan ah iminka ka soo baxday 900 iyo googo qof ayaa ku tartamay golayaashii baarlamaanka iyo golayaashii deegaanka dabadeedna iminka degmadana ugu badan 17 bay leedahay waanu yaraynay degmooyinkii kale 13 bay leeyihiin eeda ahaa ee 21 ahaan jiray hargeysa 25 bay ahaan jirtay maanta golaha halkan fadhiya maaha xildhibaanadii kulmiye ka soo baxay maaha kuwii ucid ka soo baxayna maaha kuwii wadani ka soo baxayna maaha saacaddan ay halkan fadhiyaan ee la dhaariyey ay meeyarka doorteen waxay yihiin golaha deegaanka magaalada hargeysa magaalada hargeysa waxay ka sugaysaa waxqabad ayagoo ah golaha hargeysa waxaynu doonaynaa markaa siday taa u gutaan waa inay golo midaysan noqdaan iminka waxa weeye say golaha baarlamaanka oo kale waa golo isagu u igman shuruucda ay iyagu ku shaqeeyaan ka badan waa golo u igman siyaasadda ay iyagu gacanta ku hayaan siyaasad ka sarraysa oo heer qarana mararka qaarkood waxay iyagu noqonayaan gole nin waliba xisbigiisii difaacayo laakiin nimankani niman gole xisbigoodii difaacaya maaha irintaynu ka saaraynaa ninkii xisbinimo la yimaada anaa wasiirkoodiiya waynu ka saaraynaa waxaan leenahay markaa magaalada hargeysa waxa ay sugaysaa dee golihii deegaanka ee hargeysa ay sugaysaa cabdikariin axmed moogaa guddoomiyaha inta golaha deegaanka ah isagaa meeyarka ah hargeysa may wada doorante xisbigu ayuu ka soo jeedaa meeyar ku-xigeenku xisbi buu ka soo jeedaa laakiin iminka waxay yihiin cabdikariin waxa weeye waa guddoomiyaha golaha deegaanka ee hargeysa waxaanuu yahay meeyarka magaalada hargeysa labada sharci buu leeyahay sharci quraba iyagu ku shaqeeyaan sharciga ay ku shaqeeyaan waxa weeye waa law number 23 sharciga 23aad 2019 kaasay ku shaqeeyaan kaana waxa ku maamulo wasaaradda arrimaha gudaha waxaan jecelahay markaa wasaaradda arrimaha guduhu way la shaqeynaysaa shaqaalaheeduna wuu la shaqeynayaa barasaabkeeda iyo maamulkuna wuu la shaqeynayaa waxaanu doonaynaa iyaguna inay wada shaqeeyaan golahani wuxuu macno yeelanayaa markuu wada shaqeeyo golahan wuxuu ka duwan yahay dhammaan golayaasha 19 magaalo ee kale ee dalka meeyarada la doortay iyo golaha la doortay waa loo tartamay meeyarkan iyo meeyar ku-xigeenka 17 xubnood ee golahu way u codeeyeen cabdiraxmaan iyo qoladii loolanka ku jirtay
ee xaggooda wax ka doonaysay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya quruxda golahan maanta waxa le ninka lagu talka hadday xisbiga tahay iyo hadday madaxweynaha tahay iyo hadday anigoo wasiirkiisiiya tahay iyo hadday xubnaha kale dowladda tahay cabdiraxmaan waxaa la yidhi waad hadhaysaa dee cumuqda way iska yaro muuqataa marka nin wax doonaya uu yimaadee laakiin waxaan ka markhaati furayaa inuu ninkaasi si ningoba a yeelayo aanay wejigiisana ka muuqan ficilkiisana ka muuqan annakana uu naga qaatay cabdiraxmaanna inuu la shaqeeyey oo golihiis la israaciyey oo golihiioo midaysan dabadeedna maxaanku dhahdaayey ay golihii yimaadeen sidaa lagu doortay meeyarka iyo meeyar ku-xigeenka cabdiraxmaan kelmad quraan odhanaya goluhu siduu maalintii kuugu codeeyey waxaan leeyahay cabdikariim aynu hawshaa uga soo shaqaynay sidii baa lagaa rabaa inaad golaha ku hoggaamiso cabdiraxmaanna waxaan leenahay meeyarka ka sokow in lagu doortaad golaha ka mid tahay xil gaara wuxuu kaa saaran yahay inaad si gaara meeyarka ula shaqayso waayo aragnimadaada ku kordhiso talooyin waxaad u baahata aad siiso waxaa soo hadhay dadkeenna kale waan la qabaa cabdikariim hadalladii uu halkan ka yidhi dee in axmed mooge lacag lama imanayo de isagu jawaabkiisa uu ka keensaday hargeysa waxaa la rabaa dadkeedu inay ka shaqeeyaan boorama dadkeeda burco dadkeeda ceerigaabo dadkeeda laascaano dadkeeda waar haddaynaan cashuur bixin daya wax kuu qabanaya ya dadweynaha waxaan kula dardaarmayaa waxaan ku boorinayaa in cashuurta la bixiyo ganacsatada waxaan leenahay cashuurta bixiya ganacsatada cashuurta la qaado waxaa ugu badan cashuurta baayac mushtariga dhexe iyo baayac mushtariga dadka hoose ee dayartaa waxaa wax ka qaadaa soo kuwaas uguma badna cabdiraxmaan miyay socon karaysaa islaanta waratada fadhida cashuurta la cashuro inay hargeysa fooqya ku yeelato miyay soconaysaa tijaarteeda waxaan leenahay waar cashuurta bixiya oo mashaariicda horumarka ka qayb gala oo maxaanku dhahdaye maamulka ka war haya oo nimankan waxaad ku tidhaahdaan waar maxaad meesha ku haysaan waar maxaa idin hayaan waar halkaa ka dhaqaaqi kari laadihiin ayaynu doonaynaa waxaan ku soo ururinayaa dadka aad iyo aad ka soo qayb gala xarinta aad iyo aad bay u wanaagsan yihiin xilliganaynu joogno somalilan waxaynu keliya aynu hore ugu soconaynaa innaka oo gacmahana ishaysanna innaka oo midaysan macnaha ma aha inaynu maxaanku dhahdaayey isku wada ra'yi nahay laakiin danka qarankaynu ka midaysannahay axsaabta siyaasigaa waynu kala ahaanaynaa waynu kala nahay laakiin maxaa diidaya ninka wadani iyo ninka ucid iyo ninka kulmiye ama gabadha in ay dariiqa horumarka dalka ay wada maraan codkana doorashada ku jiray kuyuuga markay ku jireen yaa wadanaya yaa kulmiye ah yaa ucida meelna kumaad kala garanayn siyaasaddaasaynu hore ugu maraynaa golahan degaanka waynu la shaqaynaynaa golayaasha degaanka guddigood waxaan leeyahay kula dardaarmayaa magaalo